kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Midnimo Media kusoo dhawaada muuqaal cusub fadlan channelkeena subscribe dheh gambaleelkana taabo si aad u heshid ama saaxiib oo la noqotid muuqaaladeena cusub markastana aad u daawatid muuqaalkeena cusub waxaanu maanta ku soo qaadan doonaa waraysi aan la yeelan doono Guuleed Cabdisamed Cabdullaahi oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka hal abuurkana leh ee ku sugan magaalada Muqdisho Cabdisamed wuxuu nooga warrami doonaa intii uu dalka joogay iyo waliba dalka dibadiisa uu safar uu ku tagay waxyaabihii uu ku arkay deegaanada kala duwan ee Soomaalidu degto Guuleed ku soo dhawow Midnimo Media waad maasantahay waan dhawahay oo aad tahay Guuleedow sidii hordhici barnaamijka inta aan soo galin adiga warbixisay waxa aad safar kala duwan ku tagtay meelaha ay Soomaalidu degaan ama deegaanada Soomaalida geyiga Soomaalida iyo waliba dalka dibadiisaba maxaa cusub oo intii aad meelahaasi aad tagtay aad ku soo aragtay gaar ahaan magaalada Muqdisho aad ku sugan tahay iminka Hargeysa sidoo kale tagtay Jigjiga tagtay sidii hordhici barnaamijka adigu sheegtay والله waxyaabaha aan arkay intaan deegaanada Soomaalida guud ahaan aad iyo aad intii aan gaadhay aan soo arkay aad iyo aad waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid ah haddaan sheekooyin ahaan kaaga sheekeeyo sheekooyin si dadka ay daawanayaan ay muuqaalka uga faa'iideystaan oo aan u fahmin in af Soomaali uu yahay wax kala duwan laakiin uu yahay lahjada uu leeyahay aad iyo aad deegaan walbana uu lahjada u gaar iyo ereyo u gaar oo laga isticmaalo leeyahay sheekada koobaad waxaan kaaga sheekeynayaa Djibouti aad iyo aad ayaa maalmaha kamid ah gurigii aan Djibouti ka deganaa oo gabadh aan qaraabanahay aan guriga deganaa ayaa waxa ku tiri guriga gal waxa soo qaadaa makhadada soo qaad makhadada waliga muqashado may waa ay laftii ugu cusubay makhadadii soo qaad bay ku tiri guriga aan galay anu markaa makhadadii waxaan u fahmay waxaan wali Djibouti ku arag baan raadinaya guriga dhex wareegaystay qol baan galay waan wareegay wax waan waay shay walba waxaan garanayo waa soo laabtay waxaan makhadadii ma taala meesha markaas adigu waxa lagu diray maqdad baa lagu diray maxaad raadisay marka yaa waxaan raadiyay waxaan dhahay ku cusub waxaan wiliga arag baan soo raadiyay bad raadinaysa waxaan wili arag soo raadiyay waan soo raadiyay waan soo adigu waxaan garan waayay markaan aad iyo aad wixii meesha guriga dhex yaalay agabkii aan wada gartay wixii ku cusub aan meesha ka waayay aad iyo aad waxaan ku dhigay maqdad ma taala guriga ugu dambeyntii maxay noqotay maqdada maqdada waxay noqotay barkin may noqotay waaya taas waxay ka qabsatay Djibouti ka qabsatay haye iyada Jigjiga wax sheeko saaweyn way waxad boodaa kalarka shanaad iyo Somaliland in kala dhacday inay aad iyo aad isku dhaqan dhawihiin aad iyo aad la yaab kuma arag wixii ama xariga ahayn aad iyo aad waa tahay Muqdisho ka timaadeen Muqdisho halka sheeko ka taagan Muqdisho dad badanina ay ruwaayada ka sameeyeen majaajilooyin badan laga sameeyay aad iyo aad ismaamul dhaaf badan oo ku jiro Muqdisho horta afmayga marka halka la iga dhigo afmayga halka iga dhigo aad iyo aad hajadan luqadan kale maxaa tiriga aad iyo aad kelmadaha ku jira marka loo imaamo sheekada karso marka waxa jira miya xagga marka maxay tiriga af Soomaaliga xagga koonfurta markii la joogo iyo xagga waqooyiga erayo ma garanaysa farqi u dhaxeeya miya jira macnaha adiga aad aragtay erayo fara badan baa jira maxaa kamid marka aad u badan erayada waxa kamid ah iyagoo sheekooyin kaaga sheekanay erayadaas aad iyo aad si ay muuqaal oo adiga ku dhacay si ay wax fiican oo ay u noqdaan dadku in badan oo inaba arkeen ay marxaati bal waayahay sheekooyinkaas inoo dulma koobaad waxa weeye aanay ku dhacday maalin kamid ah magaalada ku cusub waxaan galay makhaayad haye makhaayadii cuntaan ka dalbaday aad iyo aad cuntadii markii la keenay raashikii la soo saaray mees ayaa wuxuu guri wiilkii ninkii cuntada keenay ma soos baan ku raacay mise dhacaan baan ku raacay waan wal istaagay dhacaan maxay yeelalu ay qabatay macnaha dhacaan ereyga dhacaan wax day muxuu hal sheegi karo xagga qaadi karo marka ereyga dhacaan adigu xageed ku taqaanay marka hore dhacaan waxa loo yaqaan goobaha boogta ku dhacdo qofka ay boogta gashay aad iyo aad cunto cunaya in lagu dhaay iska daayo qof suuqa maray dad dhacaan ku tiraado waad filaysaa aad iyo aad adigu sheekadaas way ku yaabtay ninkan marka kula dhacaan ku keenaa mise waxaan kugu soo diraa soos isagu muxuu u jeedaa dhacaankaas halkaas dhacaan wuxuu uga jeedaa waa nooc sooska kamid ah sooska cad uu dhacaan ku sheegay isagu ama wax kale aad iyo aad adna halkii kala u qaadata horta yaab bay ku noqotay aad iyo aad bay noqon gaadhay maalintii aad iyo aad sheekada labaad waxa weeye ku saabsan xagga ismaandhaafka eriyada waxyaabo badan oo waxa jira area ahaan aynu anagu isticmaalno idinku isticmaashaan inagoo hal shay sheegina laakiin qolo waliba ay u taqaano wax kale ama eri gaar u taqaano waxa ku ka xagga dhismaha marka la eego farayaambo fuundi aad iyo aad muxuu ahaayay waxyaabahaas oo kale
marka faryaamo iyo fuundi adiga maxaa u taqaan adigu anu wastaadina jaar baan oqaan ha marka la joogo deegaanada Soomaaliland ha wastaadina jaar aad iyo aad ama gobolada qoyma kale laakiin halkan faryaamo iyo ha fuundi iyo aad iyo aad adigu amuro noocaas aad iyo aad sheekada labaad waxa weeye erey kelmad ha dhan kelmad kaliya oo sheeko ha inaan saaxiibnahay kaga dhacday sax inaan saaxiibnahay oo jeeri la yiraahdo waa ka salaamaya jeeri sugay hadda magaalada Kalkaxal ku sugay aad iyo aad baan salaamaya aad iyo aad jeeri waxa dhacday Hargeysa tagay ereyga jeeri naan waxa looga yaqaanaa ninka cheese-ka ha halkan isaga xamar buu ka tagay aad iyo aad waa nin xoogaa iska naafa Hargeysa tagay gabadha walaalin Hargeysa degan buu tagay ninkaasina farsamayaqaan oo telefoonada sameeya gabadha dariska baa u timo waxa ku jirta telefoonka iyo hagaaji oo dadka saaris igu sameeyo saaxiibkay wuxuu u baahday dalawandi buu u baahday si uu telefoonka ugu safeeyo aad iyo aad waa baxay bariisu qaatay dukaanadii suuqa oo dhan buu maray aad iyo aad dukaan walba galaa wuxuu leeyahay dalawandi aad iyo aad dalawandi waa maxay marka ereyga dalawandi adiga ka guulad ahaan hadda dalawandi maxaa u taqaanaa hadda dalawandi waa bartay aad iyo aad maxaa u baratay hadda waxaan u bartay inuu yahay shay la yiraahdo Tinder waxaan u Tinder u aqaan aad iyo aad ama xaggayga Tinder looga yaqaan xagga Tinder baa looga yaqaanaa laakiin xagga markii la joogo waa dalawandi aad iyo aad reergiisa ku sheemanaya dalawandi ha wana bahalkan loo isticmaalo xagga cilaamadka dumarka telefoonada aad iyo aad safayntooda iyo waxyaabahaas waa loo isticmaalo marka jeeri xaggu tagay adoo shaqadii inoo soo wada sheekadii baan noo wadayaay jeeri meel Hargeysa tagay aad iyo aad aduu dalawandi uu soo raadiyay dukaanada dhan ku soo daalay uu soo wareegay uu soo waayay ha marka dalawandi la'aan ma jidhe laakiin waa isfahan ba ha waa xagga isfahankii magaciibu garan waayay ha guriga ku soo laabtay wuxuu ku yiri gabadhii walaasha nagaad meel tuulaah oo aan dalawandi laga helin waxba laga helin aad iyo aad noo darsan ma tagay waayaha waa magaalo waa caasimo aad iyo aad marka waxa ku dhacayo dalawandi baan raadiyo dalawandi baan soo waayay ilaa markii dalawandi baan raadinayo ilaa hadda ma hayo waxa ku tiri maxaa dalawandi badaha bileemaad ayuu Tinder ma dhahay haduu Tinder dhigi lahaa laakiin wuu dhahay be dika uu baxay tukaankii ugu dhaweeyay ayuu galay aad iyo aad markaas wuxuu yiri waa niyo Tinder geeyay aad iyo aad markaas wuxuu ku dhino marka hore wax kala weydiisay markaas uu talawandiga sheegayba waa Tinder kaasoo marka wuxuu weeyay qofku hadii aanu lahjadii u fiirsanin ama aanu oran eriga maxaa laga wadaa oo aanu isku dayno fahmo wax badan oo ismaandhaaf aad iyo aad marka guuleedo hadda adigu xamar baa tagtay baa timaaday oo hadda ku sugan tahay Hargeysa waa tagtay wax badan ayaa kaaga baxay marka dadka aan hadda meelaha badan tiginin oo lahjadii luqadii magaranaysa luqadii dhexdeeda wax badan aan ka fahansaneyn maxaa ay ugu soo koobaysaa hadalka ugu dambeeya halkay ugu dambeeya waxaan ku soo koobayaa hal sheeko ku soo koobaya iyo hal talo halka sheekada waan horeysiinay waliba dhaqanka xagga shukaansiga ama hasaawaha oo kale runtii dhalinyarada Muqdisho iyo waqooyiga way ku kala gedisan yihiin aad iyo aad in badan waxa laga yaabaa inaanay isfahmin aad iyo aad oo aanay isku fahmin shukaansiga aad iyo aad haday tahay ereyada la adeegsanayo haday tahay goobaha lagu ballamayo haday tahay qaababka loo kulmayo ama meelaha lagu kulmayo hadda ka hor baa maalmaha kamid ah gabadhan isbaranay ayaa saan u sheekaysanay maalintii waxaan go'aansanay inaan isku kulanno asraga markaas waxay ku tiri waanu saakayna laakiin gurigayga igu imanaysa aniga gurigayga ayaa igu soo booqanaysa igu imanaysa waayahay waxaan ku uri deeynaa gurigiina ma aqaano dadkiina ma aqaanay maxaa yeeladay waxay tiri dhimale annaga guriyaha lagu shaqaystaa waliba gabadha gurigooda lagu tagaa waa in majority-ga Muqdisho say u badan tahay ma sidaas aha gurigii baan adigu maalmo dhamaan ka calooday waan sidkay markii dambe waa tagtay adigu habeenkii dambe gurigii hay ilaahu maxaad weey aabaheed baa jooga hay walaalkeed baa jooga hay walaalaheed oo gabdhaha baa jooga hay diriska reeraa degan adigu dee guri dhan oo camiran ilaahu yaa shimbar ka dhig kaliya ka soo galo qolba la fadhiistay aad iyo saasaan u fadhiistay marka hadal buu iga soo bixiyay aad iyo aad marka xagga Hargeysa ama xaggan waqooyiga سلسلة كوش كان سعيدة مركي جوري بيجوا بلا مسوا. جوابها عادي قبلنا نضل لسوش خمسة. جوري جوري بدنا نقول تيجي جوري بدنا قوي ما يسان. بنا كان مش كيست عادي. عادي. لكن مين حاجة مركي لقى حاله مين الشرف بدنا جوري إنه لو قلت له جوري كذا. هرت باب هذا قريب منا شرف طيب بس قريب منا لكن واحد شيء إنه. عادي. كان بتكسران. كان دونا شاف فرق كذا. كان تصورين لا واحد. واي هاي. ثلاثة قدام بيسا. قدام بيسا. بالشيء هاي أفكم كل دونين. شنطة صومالية ميل كسي دقين أفرق ما كانت تكسر عادي يعني هذا أفرق كمية وانا ركي صح وقوي وكل شيء كونفور هذا أنكو سجنا هاي جبوتي وصار كي يكلر السنة إن في دبي دمان
bulshada haaf Soomaaliya kuma kala duwaneen ha laakiin lahjada iyo ereyada qaar baan kala tkasanahay Aad iyo aad. ereyadaasina ha waa erey marka asalka loo celiyo waa shay waliba asal buu leeyahay moogtay asalka af Soomaaliga hadii loo celiyo la isku fahmi karo marka waxaan leeyahay lahjadu meel ku kala tagsanahay ma ku yara kala duwanahay ereyada qaar ha af Soomaaligu waa hal Soomaaliduna waa hal waa dad qura diin qura leh oo luqad qura leh oo deegaan qura leh aad baan u salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Ramadaanka aad baa u mahadsan tahay guuleed waa tahay daawadayaal barnaamijkii gaarka ahaa oo inoogu waramayay guuleed Cabdisamed Cabdullaahi waxaan jecelnahay inaan intaas ku soo gabagabayno barnaamijka halkan waxaa idin kala socodsiinaya anigoo Khadar Cabdullaahi Maxamuud dhanka kaamirada iyo waliba farsamada waa Sagal Yuusuf Xaaji mahadiha ka gaadhay inta barnaamijka mid la ayna ku kulmi doono